caruuska ayay ka eryadeen arooskii dad badan oo caraysan kadib markii xaaskiisa koowaad ay gashay xafladii si ay dadku u ogaadaan in uu horay u guursaday oo weliba uusan guursan hal mar balse uu guursaday 2 mar oo kale. Asiif Rafiiq Sadiiqi oo ah nin gar weyn iyo buurin daadiisun tahay sodomeeye ayaa waxa wax gaarsiiyay oo dharbaaxa kala daalay dadkii badnaa funaanadiisa iyo surwaalkiisaba waa la jeexay waxaanu ku dhex baaba'ay rabshadii arooskiisii ka dhacday. Markii hawshaasi dhacday kadib ayaa caruuskii oo bas ku dhex dhuumanaya isla mar ahaantaana rafaasan ayaa waxaa badbaadiyay dad aan la garanayn. si kastaba ha ahaatee inkastoo ninku yeelan karo ugu badnaan 4 xaas waa in uu helaa ogolaansho xaaskiisii hore ka hor intuusan guursan midda kale, taas oo u muuqata in Master Sadiiqi uu ku guuleystay in uu fuliyo talaabadan xaaskiisa ah iyadoona markii hore xaaskiisa cusub iyo qoyskiisaba ay ogaayeen guurkiisa hore ayaa hal mar haweenay caraysan ay soo gashay howlka xafladda oo ahaa goobta arooska uu ka dhacayay. maxaa jira walaal ayaa mid ka mid ah caruusada qaraabadeeda waxay weydiisay gabadha sida laga arkay muuqaal laga duubay intii xafladdu socotay. kolkaas ayay tiri Sadiiqi waa ninkaygii sidoo kalena waa aabaha caruurtayda wuxuuna ii sheegay in uu 3 cisho aadayo Hyderabad ayay ku cabatay iyadoona gacanta ku wadata wiil yar oo ay sheegtay in uu isagu dhalay. kadib ayaa qoyskii arooska dhiganayay ay u kaxeeyeen qol gaar ah halkaas ay ku siinayeen fursad ay dadku ku fahansiiso bal waxa dhacay iyadoona ay ag tooban yihiin qaar ka mid ah qaraabada caruuska. taasi waa sodohday, taasina waa dumaashiday oo ii sheegtay in hooyadeed oo ninkayga dhashay ay xanuunsanayso 3 cisho ayna dhakhtar taal. gabadhii Sadiiq ayaa sii wadatay hadalkeeda ka hor inta aysan toos u abaarin caruusadii cusbayd waxayna tiri naaya maxaad ka ogtahay in uu ninkani ninkayga yahay xitaa kama warwaraya miya cunugiisan yar. halkaasi kuma aysan joogsan waxay sheegtay in ninkani guursaday 2016 xilligaas oo ay ku kulmeen jaamacad halkaas oo xilliga ka jiray. kadib waxa kale oo ay sheegtay in gabar labaad uu si qarsoodi ah u guursaday oo macallin ka ahayd jaamacadda dumarka sanadku markuu ahaa 2018. kadib waxa kale oo ay sheegtay in gabadh labaad uu si qarsoodi ah u guursaday oo macallimad ka ahayd jaamacadda qaybta dumarka sanadku markuu ahaa 2018 waxayna ku ogaatay fariimo ay isku direen labadooda. Master Sadiiqi ayaa sheegay inuu markii hore dafiray jiritaanka gabadhaasi laakiin uu dib ka qirtay waxayna ahayd Master Ashraf iyadoona ku wargelisay Master Sadiiqi arooskoodii ugu dambeeyay iyadoona si ku xumayn ah ugu dirtay sawiradii xafladda. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan haddaad ku cusub tahay bogon ka mid noqo asxaabta halkan ku taxan.